kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada TV-ga Soomaalida Holland waxa barnaamijkan caawa marti inoogu ah Sahran Naaleeye oo kamid ah dalada guud ee Soomaalida dalkan Netherland ee Efsan. Sahra waxay u qaabilsantay barnaamijyada arrimaha horumarinta dumarka gaar ahaan gudniinka hablaha. Sahra habeen wanaagsan. habeen wanaagsan Ahmed. ku soo dhaw TV-ga Soomaalida Holland. waa mahadsan tahay. baryahan ama intii u dambeysay sanadii u dambeeyay oo dhan waxaad ku mashquulsanaydeen barnaamijkan gudniinka hablaha iyo horumarka dumarka. maxaa ilaa imika idiin qabsoomay? wax badan waa noo qabsoomeen, waxna waa noo dhiman yihiin runtii. arrimaha haddaan kow ka bilaabo arrimaha gudniinka gabdhaha ayaan aad ugu mashquulnay waayadii dambe ama sanadihii dambe. sidaa la socotid nooc kasta oo gudniina wadankan waa ka mamnuuc. sidaa daraadeed macnaa sharci kaliya wax ma tarayo. waxaan dhahnaa anaga waa in waxaa loo baahan yahay wacyigelin. marka anaga mar hore ayaan bilawnay wacyigelinta. Soomaali ayaan ku bilawnay. haddana maanta oo taariikhda marayso muxuu ahaa 2020 wadamada Afrikaanka ah ilaa iyo maanta ugu dambeyso sanadihii ugu dambeeyay aan tababarna hataa Iraq Kurdis iyo dad Yamaniin ah. marka dhinacaas macnaa horumar weyn ayaan ka gaarnay. taas kaliya anaga kuma mashquulsanayn hataa waxaan anaga tababar gaar ahaan aniga aan tababara ka nahay dhinaca macnaa professionalka ama dadka muxuu ahaaye professionalka ama caafimaad ha ahaadaan ama ha ahaadaan hay-adaha kale oo gaar ahaan la shaqeeyo dadka arrimahan isticmaalana ayagana tababarkooda waa ka qayb qaadanaa. waxaan kaloo howlaha kale aan qabano wax allaale wixii documentiya oo la horumarinayo oo macnaa oo ama protocol ha ahaadana qayb ayaan ka qaadanaa oo waxaan ka tirsannahay muxuu ahaaye as a national level qolooyinka muxuu ahaay sida Faros iyo khaydeedana waa la shaqeynaa guud ahaan. waa tahay waxa aan isla garanay ama dunidoo dhan ay maanta la isla og yahay in gudniinkan dumarku uu yahay mishandling Netherlandka afka Netherlandka ama dembi uu yahay. haddana dadkii weli way wadaan. maxaa caqabado oo markaan aad barnaamijyadan ama wacyigelinta maxaa caqabado kala kulantaan? horta marka hore waxaan rabaa inaan ku noqdo waxa macnaha dadka u wadaan arrimahan oo gudniinka gabdhaha marka la sameynayo sabab ayaa la xiriira. sababahaas oo loo nisbeeyo waxaa kamid ah dhinacii caadada. dadka qaar waxay ku xiraan gabadhii guur ma helayso, dhinacii diinta, dhinacii nadaafadda waa kala duwan yihiin. macnaha sababa ayaa jira muxuu ahay arrimahan inkastoo dadkii runtii hadda Axmedow ay fahmeen inay arrintan arrin diini ahayn ama arrin maaragtay ay iskugu soo aruurtaba inay tahay dhaqan. haddana markaad wadid wax intaasoo sano ah ama kumaankun sano lasoo isticmaalayo joojinteeda hal maalin kuma dhammaanayaan. caqabadaha waa iska badan yihiin. caqabadaha ugu waaweyn ee macnaha intaad howlahan wadeen idinka hor yimi maxaa kamid ah? intaan macnaha howlahan wada waxaa naga mid ah dadka qaar oo naga soo horjeesto ooba jecleenba inay informationka qaataan ama muxuu ahaaye aad u malaynaysid in adiga dankaar aad ku wadatid. dadkii oo muxuu ahaaye weli arrintii ku dhegan oo weliba dhinaca diinta ay leeyihiin macnaha waa arrin jirta. caqabadaha ugu weyn waxa waaye hadda social mediahii markuu uu soo batay in wadaada qaar ka mida ay arrintii macnaha ay buunbuuninayaan oo way jirta ay leeyihiin. caqabadahaasoo dhan ayaa iska jira. caqabadaha kale oo naheystana waxaa ka mid ahay runtii waxa hadday mashruuca ay 1 sano ama 2 sano yihiin dhibaatadooday leedahay. macnaha wixii oo socda ayaa macnaha muxuu ahaye kaa istaagaya. macnaha muxuu caqabadaha waa badan yihiin runtii. waa tahay guulo waaweyn ood gaadheen ma jiraan markaa? guulaha ugu waaweyn oo gaarna waxa waaye arrintan waagii hore markaan bilaabayn maba laga hadli karinba dadka dhexdooda. dumarkana gooni ayaa loo tababaraya, raggana gooni. laakiin maanta dumarkii iyo raggii oo isku dhex jira ayaa macnaha trainingkii la siinayaa ama dadkii oo muxuu ah wacyigelintii labadii oo isku jirta ayaa la siinaya. waxaan xasuustaa aniga hataa kaamamka waan tagay wacyigelinaan ka bixinay. raggana gooni ayaan usii jirnay, dumarkana gooni iyo muxuu ahaa kan saddexaadna waxaan ragga iyo dumarka ayaan isu keeni jirnay. macnaha isu keenidaas oo laga wada doodaya inkastoo markay dumar yihiin sheekada ay ka duwan tahay macnaha qofka oo qalbi furnaan kaala hadlaya. laakiin hadda waxaa moodaa inay dadkii waxoogaa maaragtay ay maskaxdooda ay furantay ay ka wada hadli karaan ay noqoto wax uun laga hadli karo. taas waxaan aan u arkaa aniga dhinaca guul. joojinta waa sheeko gooniya laakiin wixii markii aad maaragtay oo wax laga hadli kara ay noqdaan waa arrin guul ah macnaha oo aan gaarnay. inkastoo horta social media iyo dadka dhalinyarada runtii aad nooga caawineen oo gabdho badan runtii oo gudan ay arrintan ay ka hadleen
oo macnaa wixii runta ay soo mareen ay ka sheekeeyeen marka wixii waxay noqdeen wax sheeke iska caadiya 15 sano ka hor dhib ayay ahayd macnaa taasna waxaa mahadeeda le macnaa wacyigelinta oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ay sameeyeen waa tahay arrintan waynu isla fahamnay waa arrin dhibaatadeeda leh cawaaqibkeega leh waxaa jira dad Soomaaliya oo imika ama dad dalalka aad sheegtay oo gudniinkan isticmaala ama gudniinkan gabdhaha u geysta dalalkoogii fasax u taga ka soo noqda ilmihii soo guda arrimahaas ma jiraan waa jiraan macnaha kolleyba muxuu ahaay ilaa iyo 10 sano ugu dambeysay xoog ayaa la saaray inaan ilmaha macnaa banaanka loo wadan hataa waxaa la sameeyey documentation macnaa documenti yar aan rabaa oo la sameeyey ay dadka qaada karaan markay wadankooda fasax u tagaan qofkii macnaa ku talagalay inuu gabadhiisa gudo ama waaridka macnaa muxuu ahaa ayeedii iyo hadday macnaa dhinaca cadaadis ay ka yimaadaan aad tusi kartid saasay tahay dad waxaa jira ilmihii macnaa gudaan Soomaaliya u celiyaan Somaliland geeyaan Djibouti geeyaan waa la wada ogyahay sanadkii hore bishii November joornaalkan ka soo baxo Khroon Amsterdamer la yiraahdo wuxuu qoray in dad badan ay Soomaaliyeed ee Kenya tageen ee gabdhihii meeshaas ku soo gudeen ilaa iyo al'aankan dad loo qabta ma jiraan laakiin kor ayaa lagala socdaa macnaa muxuu ahaayay dadkii waana lagu macnaa baaritaankii wuu socdaa weli laakiin ilaa al'aankan qof macnaa loo soo xiray macnaa arrimahaas ma jiraan laakiin Axmed waxaan kuu sheegayaa inay dad Soomaaliyeed wacyigelintan la sameeyay waxyaalahan dhan oo la sameeyay ay ka dhaga adeegaan oo fasax kasta markii la gaaro hatta Afrika ma geeyaan waxaan maqalnay inay Ingiriiska tagaan joornaalkii ugu dambeeyay hadda soo baxay in macnaa dad Soomaaliyeed oo badan ay hatta ku sababeeyeen waxyaalo uga guureen Holland inay ka mid tahay arrimahaas gudniinka ah oo halkaas Ingiriiska oo ay ka fududahay sababta Ingiriiska waxaa jooga dad badan oo dhaqaatiir oo umulusooyina oo wadamo badan ka yimid Suudaan ka yimid Soomaali ka yimid Masaari ka yimid oo gabdhaha gudaan arrimaha joornaal 2 week ka hor ayuu soo baxo arrintaas macnaa oo lagu sheegay marka arrintaas runtii dhinac markaa ka fiiridid waa arrin si fiican macnaa u hirgashay dhinaca kalena waxaan leeyahay dad badan weli waa ku taamayaan inay gabdhahooda macnaa ay soo gudaan waa tahay Sahra dadkan imika gudniinka geysta dalka Netherland xeer baa laga soo saaray ciqaab baa jirta buuta ama ganax baa la siinayaa ama ciqaab bay leeyihiin oo xitaa ilaa xabsi qofka la geeyo ma u malaynaysaa inay arrimaha saas oo kale ay shaqaynayaan in qofka la ciqaabta ma shaqayn kartaa ciqaabta waa shaqayn kartaa haddii qofka dembiga lagu helo oo macnaa oo la soo qabto waxa waaye hadduu qofka uu sameeyo waa 12 sano oo xariga ama 75,000 oo ganaaxa laakiin hataa markuu waaridka asaga naftirkiisa sameeyo waxay sii noqonayaan 16 sano marka ciqaabta runtii waayadii hore markaan macnaa adiga 10 sano ka hor anaga waxaan xooga saarayna dadka in wacyigelin badan la siiyo sababtoo ah caado intaas la isticmaalay waxaan ku doodayna dadka marka hore ciqaabta waa muhiim waa inay jirtaa laakiin waxaan ka doorbidnay in dadka wacyigelin la siiyo laakiin 20 sano kadib haday dadka waliba dadkii hore ay wali ku adkaysanayaan inay gabdhahoodii soo gudaan ama gabdhihii ay ayeeyda ama ay u noqdeen ay ku talinayeen in la gudo macnaa ciqaabta haddii dembiga lagu helo macnaa waa istaahilaan ayaan aniga aan dhihi lahaa ilaa hadda ma aragtay dad dhibaatooyinka ama ciqaabaha noocaas oo kale ay gaareen ama dad loo qabsaday dembiga ay ka galeen gabdhaha والله إلى يهولند هذا دت معنا لاقبت أرنتاسي أديك ورر حاسة إسكام عرقتي أو قبلها لسوق جدي أما دت لوقا قبسة ويجران لكن وح محكمة لكانة أو الحكومة مجرت أرنتان مر أيال وقال دمنين مراكان أو قبل يسكاني سنوين كار حنانا دو ديجرت كبعدين قبل مركي لباري وحوها عابق إسكا إنفكشن قبل وكود على لكن جنين ماهين لكن دad oo hadda macnaa loo xiray ama sida wadamada Sweden iyo waxa ka dhacday ama Switzerland ama America laakiin qof hoolan oo degan oo wali arintaas loo xiray ma jirto waa tahay dhibaatooyinkan gudniinka waxay keenaan dhibaatooyin badan oo dumarka ay u keenaan baa jira gudniinku aan ugu keenayo sababta loo joojinayaana de waa la dareemi karaa dhibaatooyinkaas weeyey dad ay hore loo guday oo ama dumar hore dhibaatooyinkan oo kale uu qabaa marka ay idin yimaadaan maxaad u qaban kartaan
waxaan u qaban karnaa wadankan adiga 6 sano ugu dambeeyay waxaa la sameeyay barnaamijyo oo macnaa meel oo consultation hours ama meel macnaa oo ayaga oo macnaa laga wacyigeliyo ama loogu sheego dhibaatada oo gudniinka gaar ahaan dhinacii jirka dhinacii macnaa muxuu ahaay caafimaadka iyo wixii la xiriiro dhan waxaa la furo waxa la yiraahdo barnaamij la yiraahdo afkaan lagu yiraahdo naazorq ayaa waxaa laga furo danhaaga laga furo ratadaama laga furo naymeeqana laga furo qaronika laga furay utarqow ka furan yahay barnaamijyadaas dhan ayaa loogu talagalo oo weliba timaado qayb daqiiqadeeda ayay imaataa marka waxa waaye barnaamij oo waxa waaye oo waxa jooga dhakhaatiir iyo neerso oo qofkii macnaa dhibaatadaas sheegtaba macnaa u tegi karo oo ballan la dhiga karo oo laga caawini karo sidaa daraadeed annaga qofkii rabo wixii su-aalaada oo la xiriiro waana la soo xiriiri karaa efsan ahaan iyo annagoo flyers badan sameyna ama buugag yar ka qornay arrimahaas marka qof allaala qofkii dumara oo ama dan ka hayso magaalooyinkaas aan tilmaamay iyo magaalooyin kale oo jira ayaa macnaa muxuu ahaayey laga furay ay nala soo xiriiri karaan si macnaa looga daaweeyo arrimahaas oo dhibaatadaas oo gudniinka macnaa sababay waa tahay barnaamijyadiinu inta badan waxay u badan yihiin wacyigelin bulshada ood meel isugu keentaan ood arrimahan ka wacyigelisaan meel walba kor iyo hoosba aad markaa isugu keentaan meelo ood ka wacyigelisaan ilaa hadda dee barnaamijyadiinu habsamidii si fiican bay u socdeen caabuqan koronaha ee imika dunida saameeyey barnaamijyadiinii maxaa saameyn oo markaa uu ku yeeshay intaan caabuqa horta aan u gaarin macnaa annaga wacyigelin iyo information siin sidaan hore kuugu sheegay kuma aanaan ekin macnaa tababarada oo macnaa muxuu ahaa dhakhaatiirtana waa ka qayb qaadanaa iyo wixii la qorayo ase muxuu ahay wadanka guud ahaan macnaa ase landlig niveau macnaa waan ka qayb qaadanaa laakiin haddaan usoo noqdo muxuu ahaayey waxyaalaha uu nagu reebay arrimahii macnaa coronavirus waa caafimaadka ka sokow ama arrimihii bulshada ama arrimihii dhaqaalaha annagana macnaa waqtigii macnaa muxuu ahaa howlihii aan wadnay waxyaalo badan ayaa naga soo gaaray waad ogtahay kasoo bilaab bishii maarso ilaa bishii juunyo waxaa dhacay waa lockdown wixii oo dhanaa la joojiyey sidaasay tahay annaga macnaa muxuu ahaa barnaamijyadeeni wacyigelinta xoogay hakad ayay galeen laakiin xataa waxaan ka qayb qaadanay barnaamijyadan wacyigelinta oo ku saabsan coronaviruska hay-adaha sida kheykheyde iyo muxuu ahaayey iyo faros waxay macnaa sameeyeen muxuu ahaa materiyaal badan ama macluumaad badan oo dadkan lagu wacyigelinayo sidaa daraadeed annaga wixii macluumaada aan helna waxaan u gudbinaa wacyigeliyaasheena siday dadkooda macnaa ugu faafiyaan oo afaf badan macnaa ku qoran intaas waxaa sii dheer efsan ahaan hataa waxaan sameyna annaga arrimaha gudaha noo ah oo sidii annagoo tix raacayna waxaan rekta lineka la yiraahdo ama muxuu ahay ay sameyday RFM macnaa ama dowladda ayaa annaga ahaanta macnaa aan u dirnay ururadayna ama website-keena laga heli karaa si macnaa ururadii efsan macnaa muxuu ahay ka tirsanay arrimahan oo muxuu ahay coronavirus ay hataa dadkoodii ay ugu wacyigeli lahaayeen ama ay ka dhowrsa lahaayeen iyo macnaa dadkeena oo tababarada muxuu ahay aan siinay qof kasta oo efsan ku xiranba waxaan u sameynay internal blade oo ku saabsan arrimahaas coronaviruska waa tahay waa si wanaagsan waxaa isa soo taraya baryahan dambe haddaan dhan kale u wareego kufsiga oo aad moodid in uu noqday caadiba u noqday ama aad dhagahaaga kusoo dhacaya habla la kufsaday habla yaryar siday doontaba ha ahaatee arrintaa bal iyada ka waran maxaa sababaad maranaysaa kufsiga Soomaaliya siiba wadankeeni macnaa muxuu waa run waa arrin jirta waayadan dambe ama sanooyinkan dambe ay aad iyo aad ay ugu badatay kufsigan Axmedow weligiis waa jiray laakiin lama sheegi jirin hadda laakiin waxaa soo shacbaxay oon la qari karin gaar ahaan dadkiyo macnaa muxuu ahay naftirkooda macnaa wacyigooda isbedelay arrimahan social mediaha sanadkii hore dhibaatada dhacda waa ogtaa gabar yar oo 12 jira in magaalada Gaalkacyo macnaa lagu qufsaday ka bacdina la dilay waad maqasheen sheekooyinkan afgooya ka dhaco 2 jir 3 jir 4 jir la kufsanaya maantadan ayaan maqlaayay oo 12 September 2020 in gabar macnaa lagu kufsaday xaafada Waaberi sarkutaala laga soo tuuray ay dhimatay oo la kufsaday waxaa meesha ka maqan muxuu ahaayay ciqaabtii dadkii dambiyadaas geystay in macnaa la ciqaabo macnaa wixii macnaa ay istaahileen in macnaa ilaa iyo hadda muxuu ahaayay sharci
kama yaala baarlamaanka waa la geeyey wasaaradda muxuu ahaa haweenka iyo xuquuqul insaanka muxuu ahaa way baas mareeyeen wasiirada waxay macnaa waxyaalahaasoo dhan oo dumarka quseeya ama gudniin ha ahaata ama kufsiga ha ahaata waxay la yaalaa baarlamaanka nasiib daro ilaa iyo hadda macnaa muxuu ahaaye lama ansixinin sida baarlamaanka inuu sameeyo ay ahayd marka arrintan macnaha waxa waaye iyada oo qofkii dembigaas geystay wuxuu istaahilay maxkamad la keeno la xukumo maahan haddii kale muxuu ahaa saan ayay u soo soconaysaa dhibaatada kale ee jirta waxa waa in la ogaada ah markay arrintan dhacdo waxaa yimaada odayaal dhaqameed oo dadkii dhibaatada gaarta waxaa laga yaabaaba in arrintii oo dhan dhibanihii macnaa iyagiyo ah haddana arrintii la qaboojiyo iyagoo wax aan u cuntamin ama la siiyo ama lagu bedelo marka runtii waxay arrintan u baahan tahay wacyigelin macnaa dhalinyaradii iyo muxuu ahaaye dadka hataa dhaqan odayaashii dhaqamada waxyaalahaasoo dhan in la wacyigeliyo laakiin waxa ugu muhiimsan ani aan ku adkaynaa waxa waaye waa in sharciga lagu adkeeyaa sharcina laga soo saara arrintan aan sharci laga soo saarin saas ayay u soconaysaa wayna kasii daraysaa haddaan waxba laga qabanin waxaad leedahay in ciqaab la helo waa in ciqaab la helo sharcigana la dabaqo ayuunbaa waxaan yaraynayaa waa si wanaagsan sahra gabagabadii barnaamijka hay-adiina ama ifsan dalada guud ee jaaliyadaha soomaalida dalka Netherland barnaamijyada iyo howlaha saad u wadi doontaan ee mustaqbalka maxay idin qorshaysan runtii horta ifsan waa urur weyn oo ururo badan muxuu ahaayey ay hoos yimaadaan sidaa la socotana ururadaasi macnaa waa iyaga howlahooda gaarka waa u xor waa macnaa way wataan ifsan shaqadeeda weyn waxa waaye waa as a national level macnaa wadankii oo dhan macnaa projectyaasha ama waxyaalaha u waaweyn inay muxuu ahaaye iyada ay raadiso ururadiina ujeedadeeda ay fuliyaan inay tahay marka ifsan waxa waaye inay la jaan qaado siiba 10 sano soo socda muxuu ahaayey in wixii maaragtay ay dadka ay u baahan yihiin hada coronavirus laga jira inay coronaviruska wax ka qabato iyo mashaariicdii ay isleeyihiin dadku way u baahan yihiin dadka Soomaalida gaar ahaan sida macnaa shaqo la'aanta muxuu ahaayey anaga waa ogtahay Axmedow waxaan ugu badan dadka qaata ceerta in dadkii macnaa hataa la wacyigeliyo dhinacii wacyiga macnaa in ay xooga saaraan waana u qorshaysan yihiin dhinacii waxbarashada dhinacii caafimaadka dhinacii arrimaha bulshada guud ahaan mideeda kale hataa wadankii inaan la iloobo ururo badan oo wadankii ka shaqeeya ayaa jira in macnaa wixii hadda ka dambeeyo waxaan ka qaban karna wadankii inaan muxuu ahaaye efsan ay barnaamijkii brain oo kale oo wasaaradda arrimaha dibadda naga caawini jirta la soo celiyo oo dadka aqoon-yahanada oo halkan jooga siday wadankii ugu noqdaan ay u caawinaan macnaa barnaamijyada way badan yihiin insha Allah waa qorshahoodan waa lagu jiraa hadda Sahra Naaleeye aad iyo aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka uga soo qayb gashay waa mahadsantiin haddaad tihiin bahda TV-ga ama meediyaha dalka Holland mahadsanid Axmed waa tahay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii waraysiga ahaa ee la yeelanay Sahra Naaleeye oo ka tirsan dalada jaaliyadaha Soomaalida dalka Netherland tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa meel kastoo dunida nagala socotaanba nabadgelyo